ma diyaarad baa mise waa shimbir bal indhaha si wacan u kala fur tani waa diyaaradda ugu yar ee nuuca droniska ee loo yaqaan UAV magaceedu waa Black Hornet waa aalad ay imika aad u jecel yihiin ciidamada gaar ahaan kuwa furimaha dagaalka ku sugan oo wax badan oo barnaamijkan ay nuga faalloon doono u adeegsada diyaaraddan farta iyo suulka lagu qaban karo waxay ugu dambeysay farsamada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee sanadahani soo kordhaya iyadoo dalalka Mareykanka Turkiga Shiinaha iyo Hindiya ay sare u qaadeen farsamada diyaaradaha UAV oo loogu magac daray indhaha cirka ka soo eegaya qubrada militariga ayaa sheegaya in diyaaradda ay ka weyn tahay waa nooca droniska aan la oran karin way kala waxtar badan yihiin waxaase imika soo baxaysa in kuwa yar oo faraha foodooda lagu qaban karo ay leeyihiin waxtar ka badan kuwa dhumac iyo dhir isku darsaday shirkadda Pronix Dynamics oo ah shirkad laga leeyahay Norway ayaa hindistay diyaaraddan yar ee loo yaqaan Black Hornet oo ah tan ugu casirsan uguna yar diyaaradaha droniska ama UAV diyaaraddan ayay ciidamadu u adeegsadaan sahanka iyadoo aad moodo sida shimbir isla markaasna guuxeedu u yar yahay ayay ilbaadsanaysaa cadowga waxayna meesha ka saaraysaa in ciidamo sahara ay la kulmaan dhibaato sida miino iyo in la weeraro Black Hornet waxyaabaha cajiibka ku tahay waxaa ka mid ah in ciidamada marka ay dagaalamayaan gaar ahaan dhismooyinka magaalada inay iskaga gudbi karto duleelada derbiyada iyadoo ogaan karta in dhismaha lagu jiro iyo in kale taasi waxay yaraynaysaa baa la yiri qasaaraha soo gaaraya askarta diyaaraddan ayaa waxay la shaqaysaa kombiyuutar yar oo askarigu xabadka ama dhabtiisa ku qabsan karo waxaanu ka hagayaa qalab isku xiro ah oo weliba muuqaalka diyaaradda halka ay marayso laga daawan karo taasi waxay ka macno tahay in xitaa madaafiic lagu bartilmaamaysan karo goobaha diyaaraddani sahanka ugu maqan tahay diyaaraddan Black Hornet oo faraha foodooda lagu qaban karo waxay leedahay 3 kaamiro oo sanbuuqada uga rakiban cabirkeedu wuxuu gaarayaa 100 milimitir culayskeedu wuxuu dhan yahay 32 garaam oo kaliya dhammaan qalabkeeduna waxa uu ka culays yar yahay 1 kilogram diyaaraddan ayaa ku duuli karta xawaare gaaraya 13 mayl saacadii muddada ay hawada ku jiri kartana waa 25 daqiiqo halka qalabkeeda isgaarsiinta uu gaari karo masaafo gaaraysa 1.24 mitir diyaaraddan Black Hornet waxay u shaqayn kartaa 2 qayb oo kala ah inay la shaqayso qalabka gacanta laga hagayo iyo in iskeed inta program loogu shubo ay u hawlgeli karto diyaaraddan waxay aad uga qiimo jaban tahay diyaaradaha sahanka loo adeegsado tusaale ahaan diyaaradaha Reaperka loo yaqaan ee Mareykanka uu farsameeyo waxay joogaan 16 milyan oo dollar halka Black Hornet qiimaheedu uu yahay 195 oo dollar askarta Mareykanka iyo kuwa Ingiriiska ayaa ah ciidamadii ugu horeeyay ee adeegsada qalabkan iyadoo Britain ciidamadoodu markii ugu horeysay diyaaradahan u adeegsadeen dagaalkii Afghanistan laga soo bilaabo 2013